duqa Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Cusmaan Injineer Yariso ayaa faray waaxaha gobolka Banaadir dowladda hoose ee Xamar iyo guddoomiyaasha degmooyinka fulinta qodobadii iyo tillaabooyinkii horumarineed ee ka soo baxay shirkii tubta horumarineed ee gobolka Banaadir ee shalay qabsoomay kaasoo goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo taliyayaasha ciidanka booliska iyo asluubta. Guddoomiyaha ayaa bogaadiyay dadaalka joogtada ah ee howlwadeennada gobolka dhowr ku xaqiijinayaan fayadhowrka iyo bilicda caasimadda oo bilihii lasoo dhaafay isbeddel weyn laga dareemayay. Inkastoo la galay xilli roobeed, haddana dhammaan waxaa laga markhaati kacay isbeddelka muuqda oo uu ka sameeyay nadaafadda iyo bilicda, gaar ahaan goobihii ay biyuhu fariisan jireen gudaha magaalada, anaga oo dib u howlgelinay balaacadii guud ee magaalada. Injineer Yariso ayaa ku ammaanay ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo taliska gacanta muuqata ay ka geysteen dib u dhis taalooyinka qaranka iyo tilmaamada caasimadda. Inkastoo guddoomiye Yariso iyo ku-xigeenadiisii ay howlwadeennada gobolka ay wargeliyeen ay la wadaageen ra'iisul wasaaraha xukuumadda howlaha socda ay ka mid yihiin dib u dhiska qaar horumarinta halbowlaha u ah isku socodka caasimadda, nalaynta iyo dardargelinta barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo taalada iyo madxafka qaran. Cabdiqaadir Shiine, JTV.